way kala kacnaa kala kacisada wana noolni arrimaha qoyska. Assalaamu calaykum seetiin. Waxaan la go'aansaday cawada maksaysiin habeen kasta intii hal qof oo caan ah salaantiis ninku salaam marka tiimaanta waxay ahayd nuurudiin KL. marka nabadiin ma fiicnidiin alxamdulillah anaka waa fiicannahay. marka waxaan hayaa sheeko cajiib ah. marka aniga markii dhageysta sheekayaasha qisiyaasha waa dhageystaa markii dhageysta tan oo qatar il noqoto maybe asxaabtaada ku fiican tahay ano waa la soo ordaa ma fahanteen. marka waxa waaye wiil iyo gabar yar oo Amerikaan ay ahayn oo isqabaan marka 24 sano jirta gabarta ninkaasina waa yaray marka way isqabeen laba cunugay dhaleen iyagoo yar ay ku dhaleen. marka sida u joogeen asi taksiilo iska ahaa taxi driver waay oo iska shaqaysanay naagtiis ilmihiisa iska haystay. marka maalmaha ka mid ah naagta warqad dheer u qortay way qortay miiska jikada u saartay waa iska baxday iyo markay baxday ninkii ay imaaday waqtiga way joogi jirtay ma joogto ilmihii kaligooda guriga joogo oo yaa bismillaah hooyada yaa guriga dhan oo kasoo dhaxraaday waa ka waay markaas iyagoo yaaban ilmihii qaylno hooyadan dhooyin markii dambe jikadoo gale jikadii warqadaab u dhaxtaal miiska waa ka soo qabtay oo aqri waxay dhahay ninkeygii aan jeclaayo ee ku bilaawday sheekada waxay dhahday adi nin fiican waa tahay laakiin nolosha ani aan kuriyoon jirin igu noolaysiinaynin nin aan barte oo nolosha aan jeclahay igu noolaysiin karo oo lacagteedana haysto marka han isoo raadinin gabdhahaagan adi korso oo qoran warqadii hooy saas in waa jirtaa adduunya ma badna laakiin taas camal waa jirtaa laakiin hooy naxariis iyo waxaas ku kaseen anaga hooy saas in waa iska jirtaa marka nimanka leh markasta qalad ka malsaari karo. marka ninkii ilmihiisoo dhab siistay dhabarku u xirtay cunugta tan 4 jirka ee iskoolkeedu geena tan cunug 2 sano jir wiil ahaa oo dhaleen baabuurka gadaal ku xirana suunkiisa u xiraa markaas uu ku soo shaqeynaa maanta dhan dad badan oo ku dhex bartay baabuurka dhexdiisa oo waday markay cunug arkaan way u naxi jireen tip fiican la siisiin jiray bas marka dadkaas u naxi jira oo baabuurka ku wada jira waxa ka jirtay gabar oo 30 jir ah meesha ku dhex baratay ilmaha ilaa waxay dhigi jirtay mar haddii ii baahan tahay ii waco ilmahan ku lahayna dhigi jirtay gurigiisa ugu wacana ilmihii waan jirtay lacag hataa waa ku siinaa doo babysitter camalanka dhigana way diidaysa ilmaha u haysay markaas wuxuu isdhahay taksiga ma baabuurto luxury oo qatarta u bedel shaqadaada markaas lacag ma hayo ilaa baabuurka taksiga waxa la dhahay ilmaha iyo asii noloshiisii way ku yaraatay cariiriya ku noqot qofka la caawinay mal ilaan marka baabuurkii bedelo isdhahay markuu bedel isdhahay bangigii wixii wuxuu ka waayeen gabartii kale oo taksiga soo bartay bangiga ana ka damiinanay dhahday bangiyaal badan ee warqad geysteen markaas bangiyaashii waa la diido ku badatay asoo yaaban wuxuu soo biila marka maalin asoo shaqada ka imaaday ilmihii iyo gabartii hadda isbarteen asla dhilay guriga joogeen waxay dhaheen warqada ku imaatay meelka maanta too kale oo isoo diiday waa iga daay ma fiiraaday markii fure maasha Allah hal bangiya ogolaatay deenta marka waxaan dhahay baabuurkii aan gatay baabuurkii uu shaqeysnaa baabuur kalan ka sii gatay waxaa noqday baabuurka dadka ijaaro oo dhahay markaaseeti waa ii kala kacdo dhahay guri fiican aan ka gatay gabartii kale oo gadaal iska barteen faraanti isku galiyeen markay faraanti isku galiyeen nolosha ee kala degtay oo guri weyn oo degi oo baabuuro baabuuradiis la ijaartaba markaas maalmaha ka mid albaabka la soo garaacay gow markuu saan u fure yaa imaad maksaysiin naagtii soo noqotay markay soo noqotay waxay dhahday
waa kugu qaldamay 6 sano maqantaya 6 sano miyirte waa kugu qaldamay ninkii oo si dartiis kaaga tagana si xun oo igu la soo dhaqmay iyo cafi ee dhahday gudaha soo gashay aan galab iyadoo dhinin gudaha soo gashay gudaha marka gabartii ka dhex aragtay markaas ay waxa leh maanta waa soo gashay guriga maalin kale iimaan kartid ani gabartaan ay taa meel ilaahay iga soo bixi ilmaha ila korisay hadan iidan guursan rabaa guriga meelkaaga banaan malahan iga baxo dheh ilbaabkiisa oo qab ka soo siistay marka waxaan ugu daray hadii ilmahaaga jeceshaan ilmahaaga ma ku diiday maxkamadana kala bixinays maalmihii ilmahaaga aa leedahay waa wadan kartaa inta kale ani iljohan ilbaab ani leeyahay ma soo istaagi kartid oo dheh way baxdo dheh naagta inay naag lacag leh u imaatay ayadoo dheh ilmaheedan ma soo fiirin gadaal say u baxday nooga tagtay ahayd way baxday ilmihiina gadaalay ma soo dhihin koodi bal ninkii lacag oo yeeshtay la dheh dartiisay u imaatay haddana waa iska baxday sidii ay ku dhuntay marka maxaa sheekayaasha looga sheekayaa intii lagu cibro qaadamo marka hooyaal oo saas gurigeena way jiraan marka laakiin alxamdulillah anaka iimaankeena iska qabnaa islaamanahay cunug anaga dhalnanahay carada waa la cuni karnaa meel ma ka aadeyno badana hal noocan way jirtaa marka intaasaan ila soo wadaagay maasha Allah mac salaam bye bye waan jeclahay